haddii asaga camal aan noqon lahaa laakiin heerka uu soo maray markuu kaaga sheekeeyo now adaa hadda taagan sax adiga hadda idaawanaya waa meesha hadda aad taagan tahay waa meesha aad rabtid hadda inaad ka dhaqaaqdid waa meesha aad rabtid inaad bari markaad bilaabaysid aad ka dhaqaaqdid waa meesha aad rabtid inaad barito habeenada kale waa habeen aad isleedahay caabu muxuu wadaa Ibralaki waa habeen aad isleedahay caabu muxuu soo kordhiyay Ibralaki waa barnaamij kale oo xiiso leh waa muuqaal kale oo aad iyo aad u xiiso badan muuqaalkan caawa aan idin wada ayaa waxa uu noqon doonaa sidaad igu ogeydeenba mar walba waxa aan reaction ka bixi jiray ama falcelin ka sameyn jiray barnaamijka TikTok ayaa waxa uu hadda noqday dawlad gooni ah ya guys hadda ogsoontihiin TikTok-gii ayaa waxa uu noqday sanadkan dawlad gooni ah wuxuu noqday dawlad wax walba loo raasado hadda wuxuu noqday awal bogtahay meelaha qaar YouTube-ka iyo Facebook iyo meelahaas la iskala soo bax TikTok-ya wuxuu noqday dawlad gooni ah inta aan muuqaalkaas ama barnaamijkaas u guda galin waxaan rabaa inaan wax yar idin sheego barnaamij yar oo dhiirigelin ah barnaamijka dhiirigelinta aniga naftirkayga badanaa markaa fiirsado aad ayaan ugu farxaa qof walba oo hami leh qof walba oo jecel inuu horumar sameeyo qof walba oo Soomaaliyeed oo raba inuu noloshiisa heer sare ka gaaro aad ayuu anfici doonaa barnaamijkan muxuu yahay barnaamijkan ma ahan barnaamij aad weyn barnaamijkan ma ahan waa barnaamij muuqaal uu duubay mid ka mid ah dadka hadda aad wada taqaanaan oo caanka ah duubay mid ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee rabaska aad wada taqaanaan oo hadda adduunweynaha heer caalami ka gaaray noloshiisa ama horumar fiican ka sameeyay noloshiisa ama meel sare ka gaaray noloshiisa sabab muxuu muuqaalkan u duubay muxuu ka waday muuqaalkan markuu duubay wuxuu ka waday dhiirigelinayo walaalihiisa Soomaaliyeed ee jecel hadda in ay ku soo biiraan mustaqbalka dadka walaalihiisa jecel ee hadda inay horumariyaan nafsadooda dadka qaar ayaa waxa jiro ayaga oo raba in ay noloshooda horumariyaan haddana wax yar caqabad yar haday ka hor imaato isliidiya niyadda iska jibinaya ama isdhiibaya adigu ma tahay qof mar walba noloshiisa ay hogaamiyaan dadka haddii aad tahay qof rajo iyo mustaqbal nolosha kale ama hami kale ama rabo in uu horumar gaaro ogow waxaan ku hayaa caawa muuqaal aad u qiiro badan muuqaalka markaa daawano kadib waxaan gali doonaa muuqaalkeeni ahaa caawa inaan falcelin ka sameeyno ama inaan isla daawano reaction ka bixino TikTok-ga reaction saaid u dheer ma ahan zaaid uma dheeraan doono laakiinse waxyaalaha qaar ay dadka qaar TikTok ay ku joogaan iyo macnaha falcelinta ay sameeyaan oo aad u quruxda badan ayaan jeclahay mar qaar inay idin soo gudbiyo saad ogsoontihiinba caawo barnaamijku ama muuqaalku waa uu ka duwan yahay waa uu ka xiiso badan yahay muuqaalada kale caawa muuqaalkan waxa uu quseeyaa laba TikTok-ley ama laba muuqaal oo TikTok ayaa soo qaadan doonaa intaan muuqaalkaas guda galin muuqaalkan hadda idinkaga sheekeynayay oo ahaa dhiirigelinta dhiirigelin markii lagu dhaho maxaa soo xasuusanay markii lagu yiraahdo barnaamijkan waa dhiirigelin maxaa niyadaada ku soo dhacay bal aan isla daawano muuqaalkan quruxda badan muuqaalka idin soo wado waa fanaan aad wada taqaanaan oo rabas ah waa fanaaniinta raba uu ka mid yahay waa nin weyn waa nin Soomaalida agtooda aad fanka ninka kaliya horumar balaaran ama noloshiisa horumar wanaagsan ka sameeyay ama waxa uu asaga rajeynayay horumarka gaaray muuqaalka marka uu duubay ayaa waxa uu noo sheegay inuu ahaa qof niyadiisa ama hamigiisa rajadiisa iyo dhibka uu noloshiisa ka soo maray heerka maanta noloshiisa uu ka soo maray ayuu nooga sheekeynayaa bada isla daawano dad badan waxa jira shalay marka meelaha soo galaa fanka soo galaa video soo sameeyna YouTube-kooda ka casnaa jiray YouTube isoo geliya leeyahay waa lagu adkeynaa qof u taga waxa la heestana soo duubay dhigayso waxa la dhahaa meeshan ka bedel eryadan tur laakiin wax walba confidence iyo kalsooni u baahan tahay marka dad badan waxa jira show markay qabanayaan waxa la show inaan ka qayb galaa raba waa lagu adkeey jiray laakiin se qof walba waqtigiisa oo leeyahay maana ka niyad jabin waxa ku fikiray inaan aniga kaliya isku filnaansho gaaro wax walba aniga xaggay ka soo baxayna inaan ku kalsoonaado marka hore kalsooni aan ku qabo aan fasaxo hadda idin sheegana dadkaas ay idin sheegay maantay views hadda loo ana ka wata safar show hadda loo maanta ana ka wata music sell hadda loo market hadda loo heesooda
5,000 marka la xisaabo 5,000 oo qof lambarka 5,000 xataa ma soo galaan suuqa marka heesaha la waa kay fanaankan weyne lil balil waxa uu noo sheegayaa waxay tahay horta muuqaalkan waa muuqaal dhiirigelin ii ah aniga ahaan wallahi aad ugu farxaa maxaa yeelay waa runtiis waxaa jiro dadka qaar diidaya noloshaada horumar hadda gaaraysid aan ogoleen in ayaga heerka ay joogaan maanta lala gaaro ma ogolo dadka qaar ma ogolo maanta booska ay joogaan hadda aad saaxiib barnaamijkaas iyo hamigaas noloshaas wata nolosheedu waxaan rabaa meeshaas in ay ka gaaro ka waran wuxuu ku leeyahay awaalanda wallahi billah ya inta meeshaas معناه اسك جارمي سان اسك يلمي او كلي واصح معناه وحو ديدن yahay adiga noloshaada horumarka ina gaartid meesh asagu maanta levelka xitaa tuu yahay qof ka sareeyo oo markaas aad rabtid inaad asaga gaartid oo aad ka cusubinaysid inaad heerka asaga uu joogo aad la gaartid ma ku ogolo wasax laakiin wuxuu ku ogol yahay kaliya inaad mar walba ka hooseysid wuxuu ku ogol yahay kaliya mar walba inaad macnaha back up aan noqoto follower macnaha in asaga raacdid bas ما أقول هيك أصلا وتاجي هاي إن كشطتك إيش كلا دبيين فران كان البي وشيء وحول هاي ده واحد جرو واجي أنا عن معناها برنامج كان بلاوي همي عن كلها أو عن كبر يجري وإذن بريا هلاسة وطايا يوتيوب كينا إيجلية فيري وفنان هير وصام رأي وكشة كنا يا لكن ما تبغيري دتكي درات سيداسي معناها أنا جاي ليدي جري maanta hadii wax walba la yiraahdo alxamdulillah ana ka wato yiri muxuu ku gaaray arintaas wuxuu ku gaaray waa dadaal muxuu ku gaaray waa sabr maxaa yeelay dhaxdu xirtay go'aan uu qaatay wuxuu ku kalsoonaaday waxa asaga ka soo baxayo inay yihiin wax wanaagsan kadib wuxuu gaaray horumar noloshiisa maanta wuxuu marayaa heer uu yiraahdo hee dadkaas xitaa heesahooda albumka heesahooda hadii la tiriyo kaalmaha ay ka galayaan 5,000 oo qof hadii la raadiyo xitaa laga ma dhaxelayo لكن ما أنت حيري هدي سوق ماركتي اللي يراهدو أنا كوت ود ذالي ورنتيس وقتي وبحي جهدي وبحي دحر حرتي وديدي وحول بكر ما هذا وكلي بيه إلا بورت وروي هدفك وروي إلا أقرأ فانتين guys مقالك أهرب إن إذا لو ذا يا واحد تاعي أو تيك توك لين لي هذا علسو أيا بريها وحو بلاوي برنامج كول برنامج كول كو بلاوي أيا كيسر لقى صار جرتي أسرع إيو مدحوينها تيك توك أو تقانان إيو علسو مدح وسكح مدح بر عنده فين كل نينكي أها عن تقانين أيا وحو ورثنا لين هذا بلال بالشاوي ورثي كدي بواحد حمري كفتير كفتا كاس أيا لصوجر تيك توك أيا لصوجر بل محاد حمري بحي هاي شيء كذا حمرت هذا لبته حتى هذا لبته العلا يقول هذا شلقة أفرق بلاد قبرك ده كنت تعتبعته أي شيء جيب أقول كلها لحسرك وقوا لحسر وهيك كاس وها شلق صوماليات بلال بلشاوي رنتي ولجن وانين كفتن بدن وانين معركة ما شاء الله دون والبو ما شاء الله كأه مركز أركتيد إيش أكو أركتيد علسو عادي maahan kilibkaas yaraan rabay inaan caawa idin la wadaago laakiin kilibkaas waxaan ka hormariyay waxay ahayd barnaamijka ahaa dhiirigelinta soo ah muuqaal hadii aad fiirsatid uu ahaa muuqaal ku dhiirigelinaya maxaa yeelay nin heerka uu joogay maanta heerka uu joogo dadka qaar ay leeyihiin hadii asaga camal aan noqon lahaa laakiin heerka uu soo maray markuu kaaga sheekeeyo naaw ana hadda taagan sax adiga hadda idaabanaya waa meesha hadda aad taagan tahay waa meesha aad rabtid hadda inaad ka dhaqaaqdid waa meesha aad rabtid inaad bari markaad bilaabaysid aad ka dhaqaaqdid waa meesha aad rabtid inaad barito aad gaartid sooma meesha oo hadda asaga joogo sax warta inaad gaartid laakiin heerka aad joogtid ogow asagana wuu soo maray heerka uu joogo maanta adiga aad rabtidna wuu gaaray muxuu ku gaaray intaasna dadaal ayuu ku gaaray aad ayaad u mahadsantiin daawadayaal meel walba caalamka joogtaan waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo muuqaalka xiga inta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa waa maskiin Ibrahim la kooyay nabadino